garanaya anigoo arday iskuulka dhigata ah hoose ayaa waxaan arki jiray nin waalan oo magaalada gidaarada mar mid fadhiya ninkaasi wax kale ma akhriyo marka waxaan filayaa 10 jir meelaas qiyaastii baan ahaa ninkaasi waa nin feedha qaawan sarwaal yar oo gaaban buu xidhan yahay timaha ku baxay wuu rafaadsan yahay mar qura istaagi maayo marba meherad buu hor fadhiisanaya marba waa ordaya marba halkaas uu maraya hal eray buu ku celcelinaya wuxuu leeyahay habaar waalid aniga qabo isku huba ma harsado uu leeyahay wax kale ma leh waxa la ii sheegay inuu dareewal ahaa baan yara weydiiyay waqti dambe dareewal gawaadhida waaweyn ee in tareeda la oran jiray ee dhuxusha gobolada dhexe ka qaadi jiray koonfurta u qaadi jiray ayuu ahaa aabihii oo baahan oo abaari hayso oo aradan ayaa u yimid isagoo gaadhigii ku jooga wadninka gaadhiga kala jiidan wata way u kala cadahay barwaaqadu ahaa markaasuu intuu gidaar fadhiisiyo la balay buu ka baxay oday maanta oo dhan ba ha sugo ha ku soo laba jeer noqdo goor dambe oo gabalkii sii dhici doonay baa la yiri kee salaadii duhur ka hor buu tagay habaarkaas ku dhacay adduunyada wuxuu ku isagoo de sidaa u khariban oo baabaasan ayaa dagaalkii wadanka ka dhacay ma jiro dhintay iminka inka laakiin anigu waxaan idin ka sheekeynaya midaan goobjoog u ahaa 29kii ayaanu gaari ka soo raacnay bas ah magaalada Boorama Hargeysa ku soo soconnaa meel dhaxaan waxaan isku soo beegnaa kolba laba baabuur oo qaada oo noociisa iblayaasha la oran jiray kolwaanu isgaadna wasdaafna wasgaadna iyaguna waxbay dhigdhigayaan berigaana daydaynimo la yiraahdo jirayo hubaysan in kaan qaba maqaayadan inantay dhow imika magaalada gaadhay ayaanu ku neemay mid dhacay qaar daydayo ka naga dambeeyay inta u yimaadeen bay baaga kuma gureen ragii ma bay gurinba iyaga qaadka kala weyn baaga gibay gureen meesha yaa ku dhintay yaa ku dhaawacmay waxba isma weydii qoladii baska inta ka soo degnay baanu saddex nin oo halka ku dhacay waxaan u haysanaa inay ugu bad qabaan laba dhaawacan u qaadnay mid show ragga halka ku dhacay baagaga ka daba tagay waa midba baalada ku dhacay mid nin weyn oo ballaaran oo la igu sheegay markii dambe ninkii qaadka lahaa inta koofiyad intaas ka qaad koofiyad caadi oo kale anaba gacantiisa ugu soo rogay ka kalena nin dhalinyaro oo dhuuban oo dheer buu ahaa u jajabay lafaana jajabay labadii dhaawac aanu soo saarnay meedkii meel baan ku dadnay reeri baan ku ballaminay dhaawac baan la soo carnay kuraasto baneen labada dhaawacan kan jajabani la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ku celcelinaya shantii ilbirqsi baa marba ku dhawaaqaya ka kalena ilaahaga gaariga eeri diintaada intuu caayo maanu de intuu caayo oran gaariga eeri siida rabbigaaga waxa way isu jawaabayaan abaleedu ka eegan way isu jawaabayaan kan la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah kana balaayis waqaya sidoo dhakhtarka arkiiso soo gaadhay gaariga bartii kaga dagay waan sugay bal xaalku halku ku dambeeyo labadii markay ugu gaadhay ayuu bal waan qatan oo iska tagayay baraan ku soo noqon baridii baan imi hablihii waxa iga sheekeeyay shaqaalaha ay meesha joogay ninkii inuu sidii ku wafaaday isagoo sidii ilaahay iyo diintii nabiga caay macnaa wuxuu caadiysto qofku uu baa hadhow ka soo noqonaya iskaxdu markay tagto kay kala leeyu yiri kii kala ii sheegan ku waxay yiraahdeen waa tan la kabaye qolkaas uu jira ugu tago waan u tagay wariya waliyo war dhacday cajiib shalay arkay wuxuu anigu waxaan iska ahayn reer magaalo jigjiga iska jooga qaad shaqa kuma lahayn walaalkay baa darawal ka haayo uu xanuunsan wuxuu gaadhiga kaxee nin salaada tukadan waan ya wasudu waa shahaadanay kii kalena sida xaaladda xun bay kaga baxday dhalinyarada hadallada xun joogteeya ama heesaa joogteeya ogow maalintaas bay ka soo noqonaysa wuxuu ku macneeyay sheekh la yiraahdo ibn qayyim buushka oo kale buuri buushka marka sida loo toojiyo hadii biyo ku jireen biyo ka soo baxa hadii biyo ku jireen biyo ka soo baxa hadii caana ku jireen caana qalbiguna waa caynka maalinta lagu jiijiyo dhibaato ku dhacdo ama quraan ka soo boodaya ama balaayo kale ay ka soo boodis marka aynu caadiysan hadalka wacan
iyo ereyada wacan iyo dikriga ilaahay ducaduna waa qabka ugu weyn ducaduna waa cibaado marka baaraka allah fiikum sujuuda aan ku cibaadaysano in ilaahay diinta inoo xifdiyo qofan qaraabanahay wuxuu iiga sheekeeyo hadda dhintay xilli abaara buu yidhi ama jiilaal oo xilligu yara adag yahay ayaa waxaa dhacday aabbahayo buu yidhi ayaa ninkii noogu weynaa ama raggii waaweynaa nin ka mida ayuu yidhi orodoo awrkaa kaxeeyo hargahaana qaadoo soo iibiyo heerka raashin u soo sii awrkii buu soo kaxeeyey hargihiina waa soo qaaday ninku wuxuu ciyaaraa turubka khamaarku aad ugu dheerayn jiray waxa balwadnanna waa balaayo meel uun bahalkii lagu ciyaarayuu soo galay turubkii dabeetana turubkii wax ka ciyaaray khamaarkii wixii markaa uu hayey waa laga helay hargihii loo soo dhiibay buu dhigtay waa laga helay heeryadii awrkuu dhigtay waa laga helay ninkii baa la waayey 2 cisho heerkii waa yaabeen dabeetana waa la isweydiiyo odaygii aqalkii miyigu joogaa war ninkii hebelaa ma aragteen awrkaagii baa magaalada kolley geed ku xidhnaayo caddaysimo ah inankiina wixii waxaa naloo sheegay inuu yaro khamaar iyo intu wax ku ciyaaray wixiiba laga helay wuxuu la soo guriya tago ayuu waayey qofkan qaraabadana iga sheekeynaya wuxuu igu yidhi sidaasuu u eegay buu yidhi waddadii magaalada u kacaysay buu saa u eegay odaygii markaasuu wuxuu yidhi ilaahay waxaan ka baryey adigoo feere qaawan oo sarwaal dabagaaba xidhan oo dhangadaad awrka ku kaxaysay gacanta ku sita halkaa inaad ka soo gasho halkaana labada low iyo surka isku jabsato naftu kaaga baxda buu yidhi galabtii ku 3 ahayd ayuu waddadii ka soo galay isagoo feere qaawan oo dhangadii awrka ku kaxeeyey wata oo dabagaab xidhan rufirs habarka waalidku noqon karaya maaha siduu u soo socday buu yidhi ayuu ardaagii aqalkii hooyaday ayuu fadhiistay buu yidhi wuu kada loobsaday garhka iyo labada low buu isgeliyey waa la kiciyaa waa la fadhiisiyaa waa ku soo noqdaa wax ma cuno wax ma cabo ma hadlo galabtii ku 3 naftaa ka baxday buu yidhi khatar cadiim weli aabbahay hooyadu way kala duwan yihiin hooyadu waxaa laga yaabaa in waxeedu hadal isaga bato aabbuhu hadduu afka kala qaado waa khalas cadiim waxaan leenahay marka in waalidka la iska ilaaliyo wax badan baa rasuulku ka warramay wuxuu rasuulku yidhi sal allahu alayh wasalam ma jiro dembi ilaahay agtii cuquubadiisu ka degdeg badan tahay adduunka qofku inay ku dhacdo iyadoo ay dheer tahay aakhiro wixii ilaahay u diyaariyey 2 dembi baa ugu khatarsan waa caasi waalidnimada iyo gardarrada iyo xadgudubka buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa khatar cadiim in waalidka iyo xaqiisa la iska ilaaliyo